gudoomiye xildhibaanada sharafta leh ee dulqaatay ilaa ay xilligan jooga saxaafadda howlwadeenada dhammaan waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. salaan kadib mudana gudoomiye mudanayaasha sharafta badan maanta dhan waxaan ka hadlaynay waxay ahayd waxna wada taabanayay na xanuujinayay qof kasta oo ka hadlayna waa toosiyey oo siduu u fikirayay ama siduu u arkaayo ka hadlay. waxaan rabaa amni markii laga hadlaayo in ay tahay naf bini aadan ah ama maal uu qof ku soo daalay ama nafti bini aadamka ahaaba in meesha lagu weynaayo. marka waxa aan rabna waxay tahay dhinac kasta haddii laga fiiriyo war naftaas ha la badbaadiyo si allaale sidii lagu badbaadin karana ha lagu badbaadiyo. waxaan rabnaa annaga waxaan nahay mas-uuliyiintii dalka horta mas-uuliyad amnigu waxaa la yidhi waa mas-uuliyad wadareed dadka qaarkiis sida ay qabaan mas-uuliyad wadareed waxay u tahay dadka mas-uuliyiinta ah ma ahane shacabka ma u aha. shacabka qaybtoodii way qaateen xaqiiqatan waayo waxaan ognahay ciidanka maalin kasta le-anaya ama maalin kasta markii qaraxyadu dhacaan soo boodaya waxaa la yidhi markii la tilmaamayo waa ciidan qabiil ciidan dawlad ma noqon karaan. miinis waxay la mid tahay ciidankaas hadday qabiil yihiin shacabkii magaalada muqdisho deganaa wiilashoodii waaye wiilashoodiiyay bixiyeen shacabka naftoodiiyay hureen waxay kaloo bixiyeen canshuuray bixiyeen. hooyadii guriga deganayd gurigeediia canshuur laga qaaday oo laga yaabay inaysan dab ka shidanin laga yaabay ilmaheeda inay iskuulka ka baxsan weyse ay soo tuugsato ama qof walaal ah ay weydiisato lacagta canshuurka laga rabay si ay u gudato waajibaadkii saarnaa oo amniga ka saarnaa hooyooyinka Soomaaliyeed. markaasaa waxaa loogu bedelay dhibaatadaas dhacayso in la yiraahdo adigayba mas-uuliyaddii ku saaran tahay. mas-uuliyadeedii way gudatay hooyada mas-uuliyaddu dhankeenay soo jirtaahe annagu aan isweydiino hooyadaas Soomaaliyeed wiilkeedii subaxii markuu ka baxo waad sidii saakay ku dhacday iyo si la mid ahaa ku dhacayso waxaa ku dhacayso hooyadii isbitaalka ay aadi lahayd inay jid u mari weyso. bilaahi calaykum ilaahay aan ka cabsanno shacabkan maalin kasta aan isku tuurtuurayno sidii dhaga hadalkii inaan meeshaan u istaagno oon ku loolamayno oo aan dhahayno mucaaradka yay waxba idiin sheegin mucaaradkaa idinla hadlaaye wallaahi oo bilaahi oo tallaahi inaysan naga saarayn maalinta yowmalqiyaamo. waana la weydiinayaa lacagtaas aan hooyadaas ka qaadnay mas-uuliyiinta qaarkood ilmahooda oo Yurub iyo Aasiya iyo Ameerika iyo Australia ku nool ay u dirsadaan ma lacagtaasaa xalaal ah ma lacagtaasaa xalaal noqonayso. waana la weydiin maalinta yowmalqiyaamo waxa la isweydiiyo waxaa waaye maalka meesha uu ka yimid iyo meesha lagu bixinaayo. wuxuu ka yimid hooyadaas ooynaysa oo dhibaataysan uu ka yimid. ma jiro maanta inteena baarlamaan ku jirto ama dawlad ku jirto madaxweynahaba ha u weynaadeen ilaa iyo prime ministerka ilaa iyo wasiirada 10% ma dhama inta ilmahoodu ay inta ku nool yihiin. halla xisaabiyo waa joogaan hay-ado ku gaar leh oo xisaabiya. waxaa jira niman mas-uuliyiin ah hoteello degan lacagta hooyadaas laga qaaday cunugiisa oo iskuul dhigta oo Mareykan iskuul ka dhigta u dirsada maba ogaba. marka canugan kale laga qaaday waxa ku dhacaya ma oga waa runtiis waa loogu cudur daarayaa xildhibaankaas intuu fadhiyaa ama wasiirkaas intuu fadhiyaa waayo saaka markuu gurigiisa ka soo baxayo cunugiisuu la hadlay baaba ma soo kacday haa haye iskuulkii ma tagtay hooyo iskuulkii ma ku geysay meel nabadahuu joogaa. intay ka timid lacagtaas ma la isweydiinin aakhira waa nala weydiinayaa. hadday shacabkana weydiin waayaan waxaan na weydiinaayo maalin aan annaga waxba isku tari karin. waa maalin oo la dhahaayo maa laa yanfacu maalun walaa banuun ayna anfacaynin wiilasha aan ku faanaynin iyo gabdhaha aan ku faanaynin. waxaan rabaa mas-uuliyadda amniga inaan uga dhiirigeliyo ciidanka amniga xaqiiqatan doorkoodu way qaateen ayagoo baahan oo guryaha laga bixinaayo oo ilmahoodii aan dhakhtar geysan karin oo islaamahoodu aan waxba siisan karin ay amnigeena sugaan maalin iyo habeen. hadda intaan ku jirnaa bannaankay taagan yihiin ammaanay mudan yihiin dhiirigelinay mudan yihiin waxay mudan yihiin in taalo loo dhiso. 20 sano iyo 30 sano oo dawladayna ee marna daciif ahayd marna dawlad ahaynay jidka noo taagnaayeen. waxaan rabaa inaan halkan ka xuso xildhibaanada ugu horeysay oo tiri shacabka Soomaaliyeed ama shacabka reer Muqdisho 4 xaafadood ay ahayd amnigana way sugnaan jirisaan ma ahaan jirin. waa xaqiiq أنا مقدشة كل شيء ما كده بحين وحبان كده حبرتي أنا جو أرضي iyadoo dhibaatadaas ka jirta
waxay la macno tahay marka dawladii markay timid amnigii la waayaa la yiri maxay u timid waa sax shacabka shalay dawlad ma jirin adinka mas'uul iska aha la yiri maanta aan dhahno shacaboo waxba idiima haynee mas'uul iska ahaada lacagtiinni adinka isku ilaaliya xaafadaha ciidan ku samaysta aan dhahno haddaysan saas ahayn xildhibaanada qaarkood way qireen inay magaalada muqdisho xaafad ahayd amnigoodana ay sugnayd dadkii muqdisho ila joogayna waa ila qiraayaane dawladdaad mas-uuliyaddaas qaadee dawladda mas-uuliyaddeeda ha gudato dawlad markaan leeyahay waa xildhibaan waa wasiir waa madaxweyne waana wada saaran tahay waxaan rabaa inaan ka hadla arrinta oo amniga oo la leeyahay meediyaha ma laga hadli karo iyo ama wasiirada saaxiibadeen ah wasiirka amniga iyo wasiirka gaashaandhigga labadaba waa laba wasiir oo laba xildhibaan ah waa saaxiibadeen ma xuma ma qaldana dadka kama xuma laakiinse mas-uuliyaday qaadeen ha qirtaan mas-uuliyaddaas aniga hal jeeraa la dhaariyey asagana laba jeeraa la dhaariyey maxaa loo dhaariyey labada jeer maxaa dhaartii hore loogu dayn waayey waxay ku tusaysaa inuu mas-uuliyad labaad qaaday mas-uuliyad annaga naga dheer inuu qaaday ku tusee mas-uuliyaddaas naga dheer uu qaadaya waxaan rabnaa asagoo naga xumaanin annagoo isaga ku xumaynaynin inuu saaxiib fiican keensado shaqaalo fiican keensado la taliyo fiican keensado oo khibrad iyo ehel u ah waatuu ilaahay yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun waxaan inaadan aqoonin ceeb ma aha aniga arday jaamacad ka soo baxa ahay business administration aa bartay saaka wasiirka gaashaandhigga haddii la iga dhigo ma aqaani laakiin ma qaban kari ma dhahayo waa siyaasad waxaan keensanayaa rag khubaro ah oo cilmiga iyo aqoonta ay leeyihiin ehel u ah arrintan garbahaygaan soo fariisinaa waxaan leeyahay wax kasta oo ku saabsan ii soo qora ii keena waxaas hadday saxan yihiin markaasaan ku dhaqaayaa waxa xun marka wasiirka saaxiibkay ah oo ducaale iyo xasan ma ahane qaabkay u shaqaynayaana qaldan ee istiraatiijiye saxan iyo saaxiibo fiican iyo yani la taliyayaal fiican ha samaystaan waxaan ognahay wasaaradaha shaqaalaha ku filan in ay tahay $700 shaqaalaha wasaaradda oo ay dawladda ansixisay waxaa jira la taliyayaal ay dawlado kale islaameed lacag ku bixiyaan dawlad islaameeda waxay ku dhahdeen war la taliyo fiican samayso saan lacag kuu siiyo khibradiisa iyo aqoontiisa hadduu waddan kala jiro ka keenso 10,000 aan siinaa 7,000 aan siinaa 5,000 aan siinaa ina adeerkaahoo guriga joogaad soo wadatay oo adiga kula mid ah saan adigii yani ehel ugu ahayn oo asna ehel ugu ahayn lacagtii 7,000 oo lagu bixin lahaa ninkii khabiirka lagu bixin lahaa asi ku bixisay maxaa faa'iido waa jugjug meeshaada joog taasaa keentay xanuunkana wada taabtay taasaa keentay inaan isku wada ciidinno mideeda kale waxaa inta laga wada qiray inay dhibaato jirto dhibaatada jirto waa sax dadku isku mid ilaahay kama dhigin dadna waa ku dhiiran karaan waa sheegi karaan waxaana qaldanay dhihi karaan dadka qaarkiisna way dhibsanayaan oo waxaa meesha ka soo baxaayo xadiiskii rasuulka oo ahaa man ra'aa minkum munkaran falyughayyir biyadihi fain lam yastadic fabilisaanihi fain lam yastadic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan waan rabnaa qalbiga yani ha idinka dhigto laakiin mararka qaarkood in meeshaan lasoo istaago shacabka yaa lasii dhaawicin dhaawac moral yaa loo sii geysanin annagaa idin hadlayna haddaydan hadli karin annagaa idin hadlayna haddaad waxyaabo kaloo isdiidan aad ilaalinaysaan haddaad wax xeerinaysaan annagaa idin hadlayno laakiin bilaahi calaykum shacabkaas dhibaataysan hooyadaas jidka ku dhalayso wax ma qaldan yihiin mase ma qaldana yuusan shaki naga gelin laakiin sidee u saxaynaa aan iska waraysanno aan isugu nimaano aan xildhibaan gaafoowa haddaa yidhi gacmo geeljir hoosaa loo dhaqaahe mas-uuliyaddan waan qaadnaye aan wada qabanno sidaan u wada qaadna ha ahaado xildhibaankana oversidekiisa ha samaysto wasiirkana shaqadii loo diray yuu xildhibaannimo iyo wasiirnimo ku marmarsiyoonine shaqada ha qabsado hadduusan xitaa aqoon u lahayn dad aqoon u leh ha keensado marka waxaan ku talinayaa in arrintaas mas-uuliyaddaas sidaan u wada qaadna ay ahaato laakiin shacabkaas soomaaliyeed shacabka reer muqdisho aanan loo gafin aan loogu darin isbitaal la-aanta waxbarasho la-aanta bir inaan loogu darin ciidanka soomaaliyeed waxaan leeyahay shacabkaas waa kuwii aad ilaalinaysiin yaani lii adeegsanin yaani la dhihin argagixiso waayo iska ilaaliya shacabkao dhan argagixiso maaha dawladda soomaaliyeed iyo dadka mas-uuliyadda u qaadee waxaa la rabaa ardayda iskuulka joogto inay iyaga intelligence ku dhex darsadaan ardayda hooyada ganacsadanayso iyagaa la rabaa inay intelligence ku dhex darsadaan shacabku say mas-uuliyadda u qaadayaan wiil arday ah maa soo sheegaayo nin shabaab ahoo wax qarxinaayo
marka waxaan rabaa walaalayaal mas'uuliyaddan wayna wada saaran tahay wallaahi billaahi qiyaamana waa nala weydiinayaa